wararkii ugu dambeeyay mashquul xoogan oo ka jira filla Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo uu gacanta ku hayo shakhsigii uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo isbedel siyaasadeed oo la filayo inuu maanta ka dhaco dalka. Gudoomiye Mursal iyo Muudey oo Farmaajo u meel marinaya muddo kororsiga uu ku taamayo beesha caalamka iyo qaramada midoobay oo walaac ka muujiyay isku day uu wado gudoonka golaha shacabka. xog ku saabsan madaxweyne Saciid Dani oo dawladda Imaaraadka ku wareejiyay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso. madaxweyne Farmaajo oo mar kale dib u soo celiyay xiriirkii Axmed Madoobe. waxaan idiin soo gudbin doonaa isu soo dhawaanshiyaha Farmaajo iyo Madoobe. dawladda Mareykanka oo soo saartay digniin culus oo ku aadan Soomaaliya. Shiinaha iyo maamulka Somaliland oo kala saxiixday heshiis dhowr qodob ka kooban. iyo Al-Shabaab oo sheegatay inay 30 askari ku dileen qaraxii shalay ay ka geysteen magaalada caasimadda Muqdisho. waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn iminkana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha wararka iyo macluumaadka dheeraadka ah ee aalaba halkan aan soo gelino idinkuna daawadayaal waxaad aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalada iyo warbixinada halkan aalaba aan soo gelino marka la soo dhawaada ee muuqaalkan aad daawanaysana like inoo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan. waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena wararkii ugu dambeeyay mashquul xoogan oo ka jira filla Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo uu gacanta ku hayo shakhsigii uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo isbedel siyaasadeed oo la filayo in maanta dalka uu galo. warar hoose oo aan ka helnay ilo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay inoo sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay filla Soomaaliya ay wajahday mashquulkii ugu xooganaa kadib markii madaxweyne Farmaajo uu go'aansaday inuu maanta ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub. wararku waxay intaas ku darayaan in madaxweyne Farmaajo uu haatan gacanta ku hayo shakhsigii uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn shakhsigaasi balse ilo ku sugan filla Soomaaliya waxay inoo sheegeen inuu yahay wasiirka ganacsiga xukuumadii dhacday ee injineer Cabdullaahi Cali Xasan kaas oo hore beesha caalamka u dalbatay in markaasi madaxweyne Farmaajo uu u magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka. maanta waxaa la filayaa in isbedel siyaasadeed uu dalka ka dhaco marka uu madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub ee dalka. muddooyinkii dambe waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxtooyada dalka iyo gudoonka golaha shacabka ay qorsheynayaan in muddo kordhin loo sameeyo dawladda federaalka Soomaaliya. kulankii shalay ee baarlamaanka ay yeesheen waxaa laga cabsi qabay in muddo kordhin ay ku dhawaaqaan xildhibaanada golaha shacabka iyo gudoonka golahaasi. maanta waxaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub taasoo ka dhigan in jawi kale uu gali doono dalka maadaama mucaaradka dhammaan saamilayda siyaasadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka dhursugayaan cidda uu noqonayo ra'iisul wasaaraha cusub ee soo aadan. tan iyo markii xilka laga tuuray ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre 25kii bishii dhaaftay ee Luulyo waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu doonayo in ra'iisul wasaaraha cusub uu ka keeno dhinacaasi mucaaradka si uu u helo muddo kordhin ku saabsan si uu u helo muddo kordhin 2 sano oo loo sameeyo golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya inkastoo mucaaradka warkaasi ay biyo qabow ku shubeen. lama oga sida uu noqon doono jawiga siyaasadeed ee dalka marka madaxweyne Farmaajo uu maanta si rasmi ah ugu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka kaas oo loo inuu noqon doono wasiirka ganacsiga Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo hore u dalbadeen beesha caalamka. dhinaca kalena gudoomiye Mursal iyo Muudey ayaa Farmaajo waxay u meel marinayaan muddo kororsiga uu ku taamayo. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo ku-xigeenkiisa koobaad Muudey ayaa Muqdisho waxay ka wadaan olole xoogan oo ay ugu jiraan sidii muddo kororsi 2 sano ay ugu sameyn lahaayeen Farmaajo oo waqtigiisa ay ka harsan tahay 5 bilood. xildhibaano la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in labada mas'uul ay la kulmayaan si gaar ah xubno ka tirsan golaha shacabka iyaga oo ku qancinaya inay taageeraan mooshinka loo sameynayo dawladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan muddo kordhinta. waxay xildhibaanadan ka cabsi qabaan in si lama filaan ah loo hoosgeliyo mooshinka la wado kadibna si gacantaag lagu ansixiyo si lamida qorshihii lagu riday ra'iisul wasaare Kheyre iyo xukuumaddiisii 25kii bishii Luulyo. Mursal oo Farmaajo u fuliyay qorshihiisa ayaa lagu eedeeyay inuu mas'uul ka yahay jahwareerka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya isaga oo xusul duub ugu jira inuu Farmaajo kursiga ku hayo sidoo kalena baarlamaanka uu sii shaqeeyo. waxaa khilaaf xoogan uu kala dhaxeeya Mursal gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyadoo labada dhinac ay isku qabteen arrimo dastuuri ah taasoo keentay
inuu joogsado wada shaqayntii labada gole. Cabdi Xaashi ayaa sheegay in Mursal uu wax ka bedel ku sameeyay xeerar gudiyo labada aqal ay markaasi isla meel mariyeen kuwaas oo khuseeya sharciyada doorashooyinka oo la hareer mariyay aqalka sare baarlamaanka dalka. Mucaaradka iyo beesha caalamka waxay uga digeen Farmaajo inuu dib u dhigo doorashada sidoo kalena uu sameeyo muddo kororsi aan sharci ahayn iyaga oo ka digay xasilooni darro midaas ka dhalan karta. dadka oo darso siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan in wadanka ay ka dhici karaan dhibaatooyin dib ugu celin kara colaadihii uu ka soo baxay haddii 4 sano mar la qaban waayo doorashooyinkii dhici jiray. beesha caalamka iyo qaramada midoobana waxa ay walaac ka muujiyeen isku day uu wado guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. qaramada midoobe iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa walaac xoogan ka muujiyay isku day ay sheegeen in baarlamaanka Soomaaliya lagu horgeynayo hindis sharciyeed qalad badan leh oo ku saabsan dambiyada galmada. xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa shaki badan ka muujiyay sax ahaanshaha hindis sharciyeedkaas oo baarlamaanka uu shalay diiday inuu ka doodo kaasi oo ay ku sheegeen inuu ogolaanayo guurka carruurta kana hor imaanaya heshiisyada caalamiga ah. qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu xusay inay u gudbiyeen gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal walaaca ay arintaasi ka qabaan. walaaca qaramada midoobe ayaa ku soo aadaya xilli ay xildhibaanada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay iska diideen ansixinta ajendaha ee kulankii shalayto kaas oo ku saabsanaa hindis sharciyeedka dambiyada la xiriira galmada. markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan madaxweyne Saciid Dani oo dawladda Imaaraadka ku wareejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo bishii September 2019 Puntland kula heshiisay inay la wareegto garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa si rasmi ah waxay ula wareegtay qaybaha maamulka iyo amniga garoonkan. 26 September sanadkii hore madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ka hadlayay munaasabadda saxiixa heshiiskaas ayaa u sheegay warbaahinta in sanad gudihiis lagu ballaarin doono garoonka Boosaaso lana dhisayo terminal casri ah balse sanad kadib oo aan waxba laga qaban madaarka ayay shirkadan si rasmi ah ula wareegtay. dhanka amniga garoonka waxaa la hoos geyn doonaa howlgalka Imaaraadka ee fadhiga kule magaalada Boosaaso. lacag badan ayaa ku baxaysa mashruucani waxaana saraakiisha la wareegay ay sheegeen in ay markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan u dhisi doonaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. madaxweyne Farmaajo ayaa mar kale soo celiyay xiriirkii Axmed Madoobe xilli isu soo dhawaanshiyaha madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe haatan uu yahay mid aad u xog aan helnay ayaa waxay sheegaysaa in sidii hore ay isaga soo dhawaanayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana ay inta badan isfaham hoose ka gaareen doodii ka taagneed arrimaha Jubbaland. mas'uuliyiintan oo 2 jeer kulan ku yeeshay Dhuusamareeb intii uu socday shirka madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa jiray xiriiro dhex maray dhinacyo ka kala socday labadaasi dhinac kuwaas oo ku heshiiyay in la ilaaliyo dastuurka Jubbaland iyo kan qaranka lana qaboojiyo xiisada. sidoo kale Farmaajo iyo Axmed Madoobe ayaa ku heshiiyay in shir dib u heshiisiina loo qabto beelaha Jubbaland waxaana shirkaas uu ka dhici doonaa magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharre si loo xaliyo tabashooyinka beelaha iyo siyaasiyiinta qaar. tallaabadii ugu dambeysay ee muujisay soo dhawaanshaha labada dhinac ayaa waxa ahayd go'aankii ay dawladda Soomaaliya Arbacadii xayiraadihii duulimaadyada caalamiga ah ee saarnay magaalada Kismaayo uga qaaday iyadoo fasaxday in diyaaradaha rakaabka ee caalamiga ah ay toos u tagi karaan magaalada Kismaayo ugana dhoofi karaan iyagoo aan soo marin magaalada Muqdisho. go'aanka ee dawladda Soomaaliya dib ugu fasaxday duulimaadyada caalamiga ah ee tooska ah ee Kismaayo ayaa qayb ka fulinta heshiis ay madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe isla wada gaareen. ila wareedyo ku dhufila Soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne Farmaajo oo hadda dhinacyo badan ay uga furan yihiin dagaal siyaasadeed uu garowsaday in si socoshada dagaalka Jubbaland aysan hadda dan ugu jirin. si kastaba haddii Farmaajo dib loo doorto ama uu helo muddo kororsi sida uu hadda u ololeynayo waxaa suurtagal ah inay wax walba isbedelaan. Mareykankana waxa uu soo saaray digniin ku aadan Soomaaliya. dawladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin hor leh oo muwaadiniinteeda ay uga mamnuucayso inay u safraan Soomaaliya iyo Kenya. war kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay inay kordheen dambiyada abaabulan ee la xiriira argagixisnimada. sidoo kale waxa ay safaaradda muwaadiniinteeda Mareykanka uga digtay inay tagaan gobolada ku yaala xuduudda dheer ee u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya. safaaradda ayaa sidoo kale shaacisay inay kordheen falalka la xiriira afduubka ay geysanayaan kooxaha hubeysan ee ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka ka qayb qaata dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa Al-Shabaab ay ka fuliyaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya
kuwaas oo ay ku geystaan khasaare kala duwan. ugu dambayntiina al-shabaab ayaa waxay shaaciyeen in 30 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dileen qaraxii shalay ay ka geysteen magaalada caasimadda ee Muqdisho. ururka al-shabaab ayaa warbixinay soo saareen waxay ku sheegeen in markaasi qaraxii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ay ku dileen askar aad u fara badan oo ka tirsan ciidanka dowladda kadib qoraal ay ku baahiyeen baraha ay internetka ku leeyihiin. al-shabaab oo dhabarka u ritay qaraxaas ismiidaaminta ah ayaa iyagu waxay sheegeen inay halkaasi ku dileen 24 askari ugu yaraan oo qaraxa ku geeriyooday sida ay hadalka u dhigeen. 32 kale ayay sheegeen ay shabaabku inay ku dhaawacmeen gaarigii isku qarxiyay dhabarka dambe ee garoonka ciyaaraha ee magaalada Muqdisho. ma jirto wax war oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay uga warbixinayaan qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee markaasi khasaaraha kala duwan uu ka dhashay.